dhimashadii hulaaku 1217 ilaa 663 hijriyada una dhiganta miilaadi ahaan 1265. hogaamiyey tataarka hulaaku wuxuu dhintay isagoo jira da'da 48 sano bishii Rabiicul Awwal sagaalkeedii sanadku markuu ahaa hijriyada 663 hijriyada una dhiganta bishii Janaayo sanadku markuu ahaa 1263 miilaadiga meel u dhow Magra. hulaaku xabaashiisii waxaa laga dhisay qalcad ku taal qalcadaha taalada waxayna ka dhigtay boqortooyo ballaaran oo la yiraahdo Ilqaaniyan Persia. magaciisa dhameystiran hulaaku waa Hulaaku bin Talib bin Jaziin waa hogaamiye tataar ah. hulaaku wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa 1217 waana maamulaha Mughal ee dalka Iiraan halka uu ka aasaasay boqortooyadii Qaaniq. taariikhyahanada qaar ayaa u arkaan inuu burburiyay dhaqankii Iiraan si ka badan kuwii kale. hulaaku walaalkii wuxuu magacaabay Mangonqan. hulaaku wuxuu noqday hogaamiye weyn oo Mongooli ah taasna waxay keentay in hulaaku uu awood u yeesho inuu ka adkaado ciidamadii khaliifka wuxuuna qabtay oo toogtay al-Mustasim oo ahaa khilaafkii ugu dambeeyay iyo weliba aabayaashii ciidankii Masar. sanadku markuu ahaa 1260 waxay ku laabteen Iiraan waxayna degeen gobolka la yiraahdo Azerbaijan. waxaana xusid mudan in hulaaku lagu yaqaano xoog laakiin wuxuu dhiirigelin jiray aqoon-yahanada iyo qorayaasha. hulaaku wuxuu ku guuleystay inuu ka dhaadhiciyo inuusan gubin maktabadihii Ismaaciil. waa natiijadii safarkiisii socdaalka ahaa ee ku socday Mongolia iyo daawashada xaaladaha waddanka ee soo saarista buuggii taariikhii galay ee Genghis Khan iyo weliba ku xusitaankii in lagu xusay buugaag badan oo laga qoray hulaaku.